بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka qodobada ku jira ee aan daawadayaal halkan idinku soo bandhigi doonana waxa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug qoorqoor oo iska wareejiyay bixinta kursiga xaaf iyo cabdi qaybdiid hadaba maxay tahay sababta halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona coleysyo soo koray madaxweynaha maamulkaasi Axmed qoorqoor qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya fatahaada wabiga Shabeelle oo laba kacleysay hadaba khasaarooyin ayaa ka dhashay halkan ayaana daawadayaal idinku la wadaagi doona qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya Ali Guudlaawe madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo loo ogolaaday inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan faahfaahin kala duwan ayaa soo baxaya wararkii ugu dambeeyana waan idinkaga heenaa daawadayaal qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare Roble oo ku wajahan dalalka Imaaraadka iyo Qatar hadaba maxay tahay sababta oo halkaasi ku aadayo halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona qodobadaas faahfaahintoda iyo go'dhow idin soo gudbi doona daawadayaal balse markuu ugu horeysa daawaday muuqaalkan like saaro la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe inoo saarayo furanaya gambalelkiisa durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida inagu la wadaag markaana daawaday ku soo dhawo qodobadii markaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed qoorqoor ayaa iska wareejiyay bixinta kursiga xaaf iyo cabdi qaybdiid ila wareedyo kala duwan ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor uu iska wareejiyay go'aanka kursiga beesha Sacad ee aqalka sare oo loolan xoogan uu ka taagan yahay kursigan ayaa waxa uu taagan madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid waana mid kamid ah kuraasta ugu loolanka adag ee aqalka sare ka imaanaya maamulkaasi wararkan keenayna dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf uu sheegay qoorqoor inaan magaciisa laga reebi karin tartanka aqalka sare waxayna taasi sababtay in madaxweyne qoorqoor uu odayaasha beesha Sacad iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ka dalbaday in la kala saaro labadan mas'uul waxaa jiri doona shir ay yeelan doonaan odayaasha iyo siyaasiyiinta beesha Sacad waxaana filaynaa inuu ka qayb gali doono Roble waxaana filaynaa in halkaasi go'aan looga gaaro kursiga ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug shaki kuma jiro in qaybdiid heli doono kursigan laakiin xaaf waa lagu qasban yahay in la qanciyo ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Galmudug qoorqoor ayay si aad isugu dhow yihiin cabdi qaybdiid waxaana lagu soo waramayaa inuu la doonayo kursiga hase yeeshee sidoo kale uu ka walaacsan yahay rabshado ka dhaca Galmudug haddii kursiga laga reebo xaaf iyada oo aan la qancin laba kamid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee Galmudug ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa harsan waxaana ku horgudban caqabado badan kuraasta harsan ayaa waxa iska leh beesha Sacad Habargidir iyo beesha Mareexan waxayna labadan kursi loo hakiyay khilaaf ka jira beelaha dhaxdooda geesta kalena daawadayaal hadeen fatahaada wabiga Shabeelle ayaa laba kacleysay roobabkii xilliga guga ee Soomaaliya ayaa sababay fatahaado xoogan dabayaaqadii Abriil iyo horaantii May 2021 ururka aan dooliga ahayn ee African Relief Development oo loo soo gaabiyay ARD oo wakiiladiisu joogaan Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in ay korortay fatahaada wabiga Shabeelle maalmahan ka waday deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar iyo Balcad tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay Boodale ayay si baan u saameysay fatahaadu halkaasi oo la sheegay in laba caruur ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qoysna ay ka guureen guryahoodii tuulooyin kale oo ku teedsan wabiga oo ay ka mid tahay Xawaadley ayuu sidoo kale ku fatahay wabiga Shabeelle qiyaastii 2,000 oo qoys ayaana ka barakacay tuulooyinkaasi laga soo bilaabay 15 Agoosto 2021 cabirka biyaha wabiga Shabeelle ayaa sare u kacayay waxaana markasta laga cabsi qabaa fatahaado hor leh oo ka baaxad weyn kuwii socday 3 toddobaad ee ugu dambeeyay 3 Juun xafiiska qaramada midoobay ee Suuduwa arrimaha bini'aadanimada oo loo soo gaabiyay OCHA ayaa sheegay in fatahaadaha sanadkan ka dhacay Soomaaliya ay saameeyeen ilaa iyo 400,000 oo qof oo ku nool 14 degmo laga soo bilaabo dabayaaqadii Abriil kuwaasi oo sababay in 101,300 oo qof ay ka barakaceen guryahoodii dhanka kalena daawadayaal hadeen ogna Ali Guudlaawe ayaa loo ogolaaday Beledweyne
beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed oo si weyn uga soo horjeeday maamulka uu madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaawe ayaa ugu dambeyn ogolaatay waan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa la rajeynayaa inuu tago magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan maalmaha nagu soo wajahan kadib markii beesha u badan gobolka Hiiraan ay ogolaatay in waan laga galo khilaafka muddada jiray. xildhibaano hore, siyaasiyiin iyo waxgarad iskaashatay ayaa ka shaqaysay socdaalka uu Guudlaawe ku tagayo Beledweyne oo uusan cagta saarin tan iyo markii madaxtooyada Soomaaliya uu boobtay kursiga madaxweynaha maamulkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Agar Dabageed ayaa hore u sheegay in madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo loo diido imaanshiyaha Beledweyne ay keenayso in aan doorasho lagu qaban xarunta gobolka Hiiraan. inkastoo Dabageed uu isku dayay inuu xoog ku maqooniyo hogaamiyaha jabhadda la magac baxday kacdoonka gobolka Hiiraan Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud, haddana taasi ma suuro gelin. waxaase hadda muuqda inay jirto isku soo dhawaansho, wada hadal iyo wada xaajood ku timid. Guudlaawe ayaa Axmed Madoobe kala mid ah dalabka ku aadan in hal magaalo lagu soo koobo doorashooyinka. ha yeeshee booqashadiisa Beledweyne ayaa fududeyn kartay isfahanka madaxweynaha Hirshabelle iyo bulshada gobolka Hiiraan. Farmaajo ayaa bedelay nidaamka awood qaybsiga Hirshabelle isagoo kale ujeedo doorasho, wuxuuna ka dhigay madaxweynaha mid isaga taageersan oo kuraasta xildhibaanada federaalka u boobi kara. dhinaca kalena daawadayaal haddeen eegno Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ku wajahan dalalka Imaaraadka iyo Qatar. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa ku wajahan dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo Farmaajo uu 4 sano la soo dhaafay meeshii ugu xumay taariikhda gaarsiiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. sida ay cadeynayaan xogaan helnay, Ra'iisul Wasaare Roble ayaa casuumad rasmi ah ka helay amiirka Imaaraadka Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, waxaana la rumaysan yahay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya oo Abu Dhabi u socdaali doono ka hor inta aysan dhammaan bisha Agoosto ama ugu dambeyn bilowga bisha Sebtembar. Farmaajo iyo xukuumaddiisii koowaad ee Ra'iisul Wasaare Khayre hogaaminayay ayaa geeska geliyay dowladda Imaaraadka, waxaana la kala diray boqolaal askari oo ay tababareen Imaaraadka isla markaana ay bixin jireen mushaarkooda iyagoo fulinayay heshiis is-afgarad ah oo kor loogu qaadayay iskaashiga militari oo labada dal dhex maray 2014. Imaaraadka ayaa faraha ka laabtay arrimaha Soomaaliya kadib markii booliiska Soomaaliya ay qabteen lacag ku jirtay 3 boorso oo aan calaamad lahayn oo saarneed diyaaradda Royal Jeddah, taas oo dowladda federaalka ay sheegtay inay u socotay xubno ka tirsan mucaaradka bishii Abriil 2018. 2019 dowladda Imaaraadka Carabta waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeyso hurinta xasaradaha siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah dowlad goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland ay si weyn kaga soo horjeesteen dowladda dhexe. dekedaha Boosaaso iyo Berbera ayay ku sameeyeen horumarin, isla markaana Imaaraadka Carabta ayaa qarsan waayay damacooda ku aadan inay doonayaan saldhig military oo ay ka furtaan Somaliland. Imaaraadka ayaa doonaya in Ra'iisul Wasaare Roble uu gogol xaar u noqdo dib u soo celinta is-afgaradkii ay sanadkii 2013 kala saxiixdeen wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan iyo sidoo kale dhigeedii xilligaasi Sheikh Cabdullaahi bin Zayed Al Nahyan, kaasi oo ujeedkiisu ahaa iskaashi iyo wada shaqayn horumarineed. dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in Ra'iisul Wasaare Roble uu sidoo kale casuumad ka helay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kaasi oo siyaasadda Soomaaliya si weyn ugu lug lahaa 4 sano ee la soo dhaafay. safarada dibadda ee Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo aadayay xilli dalka uu ku jiro marxalad doorasho, waxaana xubno ka tirsan xafiiska Roble ee xaqiijiyeen in Maxamed Xuseen Roble uu ku soo aaday xilli ay jirto lacag la'aan baahsan, tiyo ay jirto in loo baahan yahay malaayiin dollar oo lagu qabto doorashooyinka dalka. wadamo uu ka mid yahay Sacuudiga ayaa laga waayay gunooyin laga filanayay. Ra'iisul Wasaare Roble ayaana fursad u arka casuumaadda gudoomiyaha hay'adda maalgashiga Abu Dhabi oo maamul ahaantii dhan 875 bilyan oo dollar, taas oo ah lacagta ugu badan ee uu maamulo hogaamiye qaran dunida oo dhan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa hore ugu socdaalay dalalka Sacuudiga, Djibouti, Ingiriiska, Kenya iyo dalka Masar uu hadda ku sugan yahay, waxaana la filayaa inuu dhawaan ka dego Abu Dhabi ka hor inta uusan caga dhigan Dooxa. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijka falaqaynta wararka ee YouTube-ka. muuqaalkan like saar si uu saaxiibo fara badan u gaaro.
ku soo bir channelkeena adigoo subscribe inoo saarayo furanaya gambalaalka sidurbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino oo ku maasantahay daawashada muuqaalka aad daawatay tan iyo barnaamijkan kiisa kalena nabadgelyo.